kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo maalmihii ugu dambeeyay qabsaday Soomaaliya ayaa waxa uu u baahan yahay isla markaana ku gidaaman 5 su'aal oo jawaab waafiya uga baahan madaxda hay'adda NISA. Maqnaashaha 70 maalmood socday iyo geerida ka dambeysay ee Ikraan Tahliil Faarax oo ay shaacisay hay'addii ay u shaqeynaysay ee nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxay kicisay mawjado naxdin tacsi iyo diidmo isugu jira waxaana ka dhashay su'aalo badan oo kiiskan ku hareeraysan. kiiska Ikraan Tahliil wuxuu mar kale banaanka keenay sida hay'addii nabad sugidda qaranku u noqotay 4 sano ee xukunka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo mid uu bedeshay hay'ad lumisay sumcadeedii horena loo siyaasadeeyay markii ay faraha la gashay arrimo fadeexado badan u soo jiiday. su'aalaha waaweyn ee dul hoganaya kiiska Ikraan Tahliil Faarax waliba u baahan in la ogaado loogana fadhiyo inay NISA cadeyso waxay kale yihiin. sidee loo afduubay Ikraan? maqnaashaha Ikraan Tahliil Faarax wuxuu soo bilowday markii la waayay habeenkii 26 Juun ee sanadkan 2021 sida ay sheegtay hooyadeed. waxaa soo wacay mid kamid ah taliyayaasha NISA gaari uu soo diray kadib ay ka raacday gurigii ay deganeed oo ku yaala meel tallaabooyin u jirta xarunta weyn ee hay'adda NISA degmada Shibis ee magaalada Muqdisho. markii ugu wardambeysay Ikraan waxaa lagu ogaa hoggaanka hay'addii ay ka tirsaneed ee NISA waxaa laga qaaday goob xiran oo aan la geli karin ammaankeeda si weyn loo sugo. waxaa taleefankeeda la damiyay iyadoo isla meeshaasi ku sugan. arrintan waxay shaki badan ku dhalisay qof kasta wuxuuna tuhunku saaran yahay NISA. sidee afduubka uga dhacay NISA xarunteeda? waa su'aasha aan laga jawaabin ee NISA laga sugayo inay cadeyn ka bixiso. waana arrinta iyadoo aan laga jawaabin lagu qanci karin wax kasta oo ay kiiska ka sheegto hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA. su'aasha labaad iyo afduubtay Ikraan. su'aasha labaad ee furaha u ah kiiska Ikraan Tahliil hooyada dhashay Ikraan iyo mas'uuliyiin kamid ah beesha ay ka soo jeedo waxay sheegeen in markii ugu dambeysay Ikraan lagu qaaday gaari uu leeyahay nin madax sare ka ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo marar badan kiiska ka hadlay isagoo u muuqday inuu difaacayo hay'adda NISA wuxuu cadeeyay in xarunta NISA la geeyay oo la tusiyay gaariga la soo geliyay baraha bulshada ee markii ugu dambeysay qaaday Ikraan lana yaqaan qofkii lahaa gaariga. markii baaritaan dhab ah jiro waxaa kiiska laga bilaabaa halkii ugu dambeysay markii uu dhacayay. waxaa la yaab leh in kiiska Ikraan aan marna la soo hadal qaadin qofkii soo wacay ee ay gaarigiisa raacday sida in la qarinayo waxayna shirkadii taleefanada qoyska u diiday inay siiso nambarkii ugu dambeeyay ee wacay Ikraan. su'aashan oo la xiriirta weydiintii koobaad waxay muhiim u tahay in la ogaado sida uu kiisku u dhacay iyo inuu ku lug leeyahay mas'uul sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo in kale. su'aasha saddexaad ayaa waxa ay tahay yaa gacan ku lahaa afduubka Ikraan. haddiiba ay sax tahay in Ikraan u gacan gashay al-shabaab sida ay cadeysay hay'adda NISA waxaa ka horeeya su'aal weyn oo hortaala taasoo ah yaa al-shabaab u gudbiyay ama gacan ku siiyay afduubka Ikraan. su'aashan waxay jawaab u noqonaysaa tuhunka marar badan la soo celceliyay ee ah in ay wada shaqeeyaan ama isku milmeen hay'adaha NISA iyo al-shabaab. tuhunkaas ayaa si meesha looga saaro u baahan in si dhab ah kiiskan loo baaro lagana dhaafo siyaasadeynta mucaaradka iyo daboolista madaxda NISA. su'aasha afraad ee kiiskan ku geedaaman ayaa waxay tahay sidee lagu xaqiijiyay dilka Ikraan. NISA waxay markii hore ka gaabsatay inay haba yaraatee ka hadasho kiiska maqnaashaha Ikraan oo waliba ahayd sargaal ka tirsan hay'adda waxaana in ka badan 2 bilood warbaahinta u taagnayd hooyadeed oo sheegtay in mar kaliya loo geeyay agaasime Fahad Yaasiin kana soo bixi waayay ballanqaadkii uu siiyay. iyadoo sidaasi ay jirto ayaa warar kaliya ee NISA soo marisay warbaahinta ku hadasha afka dawladda waxay noqotay inay al-shabaab u gacan gashay isla markaana ay dileen. al-shabaab ayaa durba iska fogeeyay dilka Ikraan kuna tilmaamay masabidasho iyo been abuur. ma cadda sida Ikraan oo lagu ogaa inay tahay sargaal NISA ah oo degan xarunta NISA meel u dhow kaliya loo ogaaday geerideeda balse aanay jirin xog kale oo laga sheegay maqnaashaheedii 2 bilood ka badnaa. haddii aan kiiskan si cad oo daah furan loo soo bandhigin lagana gun gaarin kaliya ma dhiman doonto Ikraan ee waxaa la dhiman doonta hay'addii NISA waxaana dhaawaca ugu weyn gaari doona dawladnimadii dib loo dhisayay. su'aasha shanaad ee ku geedaaman kiiskan ayaa waxa ay tahay maxaa kiiska Ikraan looga gaabiyay oo loo daboolay. inkasta oo kiisku yahay mid ku lug leh sirdoon haddana sida ay NISA u wajahday waxay ahayd mid gaabis ah oo aanay ka muuqan dadaal badan iyo wixii laga filan lahaa hay'ad sirdoon oo sargaal ka tirsan maqan yahay ama halis ku jiro.
agaasimaha nisa iyo madaxda hay-adda marka lagu daro madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee villa Soomaaliya fadhiya haddii aan ka soo qaadno inaysan wax lug ah ku lahayn kiiskan oo saraakiil kale ka dambeeyeen waxa kaliya oo ay ku badbaadi karaan in ay tallaabo cad qaataan oo kiiskan cadaaladda mariyaan ciddii ku lug lahaydna ay soo bandhigaan haddii la isku dayo in aamus xal loogu raadiyo kiiska Ikraan ama la ismoogeysiiyo waxa kaliya ka dhalan doonta qalalaase iyo dhaawac weyn oo gaara dowladnimada Soomaaliya waxayna farmaajo iyo fahad ka dhigi doontaa inay dib u celiyaan dowladnimadii dalka ee meesha hoose laga soo bilaabay 20 sanadood ka hor talaabooyinka xalka u noqon kara kiiska Ikraan ee la hadal hayo waxa kamid ah xilka qaadis iyo guddi baaritaan madax bannaan oo loo saaro laakiin waxaa xusid mudan in dowladda hadda jirta ay magacawday 10 guddiyo oo aan wax natiijo ah ka keenin dhacdooyin iyo shilal la mid ah ama ka weyn kiiska Ikraan meeshii lagu magacaabayna ku dhamaaday waxaa miiska saaran kalsoonidii yareed ee hay'adaha dowladda lagu qabay waxaana cadaalad u baahan saraakiishii dowladda ee laga sugayay in ay ka shaqeeyaan amniga dadka markii ay iyaga amni waayeen xalka kaliya waa guddi madax bannaan iyo runta oo la soo bandhigo ciddii ay rabto ha u darnaatee dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax isagoo sheegay in warbixintii nisa ay ka soo saartay kiiskeeda aan lagu qanci karin Rooble ayaa faray agaasimaha hay'adda nisa Fahad Yaasiin in 48 saacadood gudahood uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo ku saabsan kiiska Ikraan wuxuuna sheegay inuu ka dib qaadan doono go'aanka ku habboon waxaan shacabka la socodsiinayaa in markii ay ii soo dhameystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon kiiskaas oo aan la wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in muddadii 2 bilood ahayd ee kiiskan uu taagnaa uu si dhow ula socday arrintan isla markaana uu hay'adda nisa mar hore ka dalbaday in kiiskaas ay ka bixiso xog dhameystiran balse waxa uu nasiib darro ku tilmaamay warbixintii ay hay'addu ka soo saartay kiiska Ikraan taasoo uu sheegay in aysan wadan wax cadeymo ah oo lagu qanci karo waxaan qirsanahay in sida aan habboonayn ee loo maariyay kiiska Ikraan ay taabatay dareenka shacabka Soomaaliyeed oo ay abuurtay caro dhalisay in la afduubto muwaadiniin aan waxba galabsan ayuu yiri Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya